bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ismaqal wanaagsan meel walba aad joogtaan iyo si walba aad noo maqlaysaanba kuna soo dhowaada barnaamijka falanqaynta wararka idaacadda kulmiye xilidan oo kale aad ka maqashaan xilli waxaynu joognaa xaajadu gurracan tahay dadkuna badi xujaaliyu xarig lama sitaan yahay xilli waxaynu joognaa ninkaad xaliya maantaba xarragada u soortood siisay doobi xoor badan inuu xamagga kugu dhego xilli waxaynu joognaa xaabsoo cun mooyee laga tegey xishoodkii xilli waxaynu joognaa xaaraami eed falay xigta lagu difaacoon la xusuusan aakhiro xilli waxaynu joognaa xawaaraha damaacigu xiddigaha ka sara maray xilli waxaynu joognaa ninkii xoola boobaa xumaanta u adeegsado xilli waxaynu joognaa dilka iyo xasuuqiyo xinjiraha ku dhaashiyo xadgudubku uu kufaan yahay xilli waxaynu joognaa nin xafida ammaanada nin xadaa ka mudan yahay xilli waxaynu joognaa xaaladda ay ku sugan tahay ummad aan xogteed qabin ama aan xisaabtamin xoog lagu maquuliyo mar kale dhegaystayaal subax wanaagsan ismaqal wanaagsan waa talaado taariikhdu ay ku beegan tahay 10-ka bisha afraad ee abriil sanadka 2018 qodobada maanta aad ku maqli doontaan barnaamijkan falanqaynta wararka idaacadda kulmiye waxaa ka mid noqonaya xildhibaano ka tirsan golaha shacabka oo xalay kulamo ku yeeshay magaalada muqdisho kadib iscasilaadii gudoomiye jawaari wararkii ugu dambeeyey oo arrimahaas ku saabsan ayaad barnaamijkan ku maqli doontaan waxaa kaloo barnaamijka aad ku maqli doontaan ciidamada xooga dalka iyo kuwa amisom oo fadhiisamo cusub ka samaystay wadada isku xirta magaalooyinka balcad iyo jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe maxay soo kordhin karaan ciidamadaas kadib markii loo geeyey in ay ka hortagaan jidgal halkaas ay ka sameeyaan dagaalamayaasha al-shabaab waxaad maqli doontaan falanqayn arrintaas ku saabsan ayaad barnaamijkan kaga bogan doontaan waxaa kaloo barnaamijka aad ku maqli doontaan dagaal dhimasho iyo dhaawac sababay oo u dhexeeyey laba maleeshiya beeleed oo muddooyinka u dambeeyey ka soo taagnaa ee deegaano ka tirsan gobolka hiiraan gaar ahaan deegaanka la yidhaahdo kuburre oo hoostaga degmada maxaas oo gobolka hiiraan ka tirsan wararkii ugu dambeeyey iyo waawaan halkaas ka socotay ayaad maqli doontaan waxaa kaloo maqli doontaan safaaradda waddanka yeman iyo dowladda soomaaliya oo ka wada hadlay muwaadiniin u dhashay dalka yeman oo muddo saacado ah lagu hayay garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho falanqayn arrintaas ku saabsan ayaad barnaamijkan kaga bogan doontaan qodobadaas iyo qodobo kale ayaad barnaamijku maqli doontaan gabagabada waxaad maqli doontaan xubintii kalamaan anigoo maxamed cabdisalaan cumar ayaa la socodsiinaya shariif cabdulle maxamed dhanka farsamada ku qaabeynaya saaxiibayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka falanqaynta wararka idaacadda kulmiye الليلة بلايو بعد هيستو الليلة بلايو وهذي عذيبو وباقي ونعس الليلة بلايو بعد هيستو الليلة بلايو وهذي عذيبو وباغي ونعس الليلة بلايو هدينا بادو بادو الليلة بلايو نككو برديني كبح صدي دوافولي الليلة بلايو هدينا بادو بادو الليلة بلايو ننككو برديني كبح صدي نوافولي الليلة بلايو ليسكو باري تراتا لايقنا تشد بحيوا بلتك ما سمراي
laygana jidbixi waa bilada kama samraaye walay baadi xumaha ubiyay sanaya walay baadi xumaha ubiyay sanaya awgeed allaylahi balaayo wiilkiisa ka galay bari waa adduunkii allaylahi balaayo ninka baqasha awgeed allaylahi balaayo wiilkiisa ka galay bari waa allaylahi balaayo ninka ku baani allaylahi balaayo badna sheeganaaye isbidaalibkuwa allaylahi balaayo ninka ku baani allaylahi balaayo badna sheeganaaye isbidaalibkuwa allaylahi balaayo laysku baaray daraada laygana jidbixi waawa bilana kama samraaye laygana jidbixi waa bilana kama samraaye walay baadi xumaha ubiyay sanaya walay baadi xumaha ubiyay sanaya allaylahi balaayo inaad tahay barwaaqiyo allaylahi balaayo inaad baasa kulul tahay baya waxau cadday karaa allaylahi balaayo inaad tahay barwaaqiyo allaylahi balaayo baasa kulul tahay baya waxau caddayn karaa allaylahi balaayo bari dhaxii xaalooy allaylahi balaayo ciidamada ku beegme badilka allaylahi balaayo bari dhaxii
dhaxiixaanuy allaylihii balaayoy ciidamada ku beegme waayahay dhegaystayaal halkaas aan kaga gudubno fanaanka codka baxsan rabbi naxariista janaalaha ka waraabiye maxamed axmed kuluc heestii balaayo ayay ahayd waxayna daafur u ahayd barnaamijka falanqaynta wararka idaacadda kulmiye qeybaha hore ee barnaamijka ayaa markaan gudagalaynaa waxaan ku bilaabayaa xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ayaa xalay ee kulamo ku yeeshay magaalada muqdisho kadib iscsilaadii guddoomiye jawaari waxaa wararka ugu dambeeyey iyo kulamadaas isha ku hayay haddana istuudiyaha ee igula sugan waryaheena cabdiqani cabdulaahi soo dhawow wararkii ugu dambeeyey bal faahfaahin naga siiy maxamed waa mahadsan tahay waxaan u socnaa shalay in iscasilaadiisa uu ku dhawaaqay guddoomiyaha golaha shacabka professor maxamed sheekh cusmaan jawaari oo runtii toddobaadyadii u dambeeyey muran uu ka taagnaa kadib mooshin laga keenay guddoomiyaha runtii waan la socnaa isqabqabsi badan baa jiray oo runtii xildhibaanadu xitaa kala aragti doonaanshahooda ay gaartay in warbaahinta ay isku marsiiyaan hadalahan jabaad ah xilliyada lagu ballamiyo kulamada golaha shacabka oo dhinac walba uu tilmaamayay in dhinaca kale aysan kulmi doonin oo ay ka hor istaagi doonaan taa oo shacabka dad ee ku beertay aad iyo aad walwal iyo walaac iyo runtii oo ay ka baqanayeen in xildhibaanadu ay gacan ka hadal isla gaarto arrintooda runtii shalay kadib iscasilaadii markuu ku dhawaaqay professor jawaari xalay waxaa muqdisho ka socday kulamo runtii gooni oo ay lahaayeen xildhibaanada labada dhinac runtii wararka ugu dambeeya in waxay tilmaamayaan in xildhibaanadii taageersanaa professor jawaari iyo kuwii mooshin ka keenayba haatan xalayto ay kulamo lahaayeen oo runtii ay ka wada xaajoonayeen ama ka wada hadlayeen sida mar haddii ay arrinkii la isku haystay uu meesha ka baxay professor jawaari uu ahaa kursigiina haatan uu banaanaaday sida ay u wajihi karaan xaaladaha kale ee soo food saaray xildhibaanada ee ku aadan ama ugu horeyso doorashada guddoonka cusub ama guddoomiyaha cusub ee golaha shacabka sidoo kale waxaa tilmaamaya inay ka arrinsanayeen in wax qalalaasa ama foodo ah ama xildhibaanadu aysan buuq samaynin maalinta biri ah oo runtii la tilmaamayo in xildhibaanadu la isku yeeri doono kulan oo uu khudbad u jeedi doono guddoomiyihii zaazile professor jawaari xildhibaanada ayaa runtii qaarkood oo aan la hadalin waxay noo sheegeen inay u muuqatay isku soo dhawaansho kala arag doonanshahoodii muddada fog socotay waxaana la tilmaamayaa in kulamadu ay ka dhacayeen qaar ka mid ah hoteelada muqdisho iyo villa hargeysa waayahay cabdiqani aad baad u mahadsan tahay wararkaas waxay kasoo kordhana waad maqli doontaan barnaamijyadeena iyo wararkeena kala duwan idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho ayaad nagala socotaan waa barnaamijka falaqaynta wararka ayaad degeysanaysaan waa hagaag dhegaystayaal idaacadda kulmiye magaalada muqdisho ayaad nagala socotaan barnaamijka falaqaynta wararka ayaad degeysanaysaan qaybihii dhexe ee barnaamijka ayaan weli bartan kaga jirnaa markaan haddii aan eegno ciidamada militariga dowladda soomaaliya iyo kuwa amisom ayaa fariisimo cusub ka samaystay inta u dhexaysa magaalooyinka balcad iyo jowhar kadib markii wadadaas dhowr jeer weeraro jidgal ah ay ka geysteen dagaalamayaasha al-shabaab maamulka hirshabelle ayaa go'aansaday in ciidamo halkaas la geeya si looga hortago weerarada al-shabaab ka imaanaya haddaba ciidamadan ma ka hortegi karaan weeraradii wararkii ugu dambeeyay arrimahaas ku saabsan waxaa ila falanqeynaya oo istuudiyaha igula sugan waryaheena axmed maxamed ibraahim axmed soo dhawow bal faahfaahin naga siiya ciidamadan fariisimaha ka samaysa inta u dhexaysa magaalooyinka balcad iyo jowhar waa mahadsan tahay maxamed cabdisalaamow sidaas sheegtay ciidamada militariga soomaaliya iyo weliba kuwa amisom ayaa fariisimo waxay ka samaysteen deegaano dhowr ah oo u dhexeeya degmada balcad iyo magaalada jowhar oo ka wada tirsan shabeellaha dhexe ciidamada ayaa fariisimo waxay ka samaysteen deegaanada la yiraahdo golole iyo hansheekh oo ah deegaanada ay ku xoogan yihiin al-shabaab sidoo kale mas-uuliyiinta maamulka hirshabelle ayaa sheegay in fariisimada cusub ee deegaanada ay ka samaysteen inta u dhexeysa magaalooyinka balcad iyo jowhar ciidamada dowladda soomaaliya iyo weliba kuwa amisom yahay mid looga hortagayo weerarada dhabagalka ay al-shabaab ay ka sameeyaan halkaas islamarkaana ay ku beegsadaan in mas-uuliyiinta iyo saraakiisha ka taliya ama ka armiya maamulka hirshabelle arintaasaana keentay in ciidamadan la dhigo wadada isku xirta
balcad iyo weliba jowhar sidoo kale al-shabaab ayaa weerar badan waxay ka geysteen waddadaasi waxaana weerarkii ugu dambeeyey uu ahaa midkii dhacay horaantii bishii hore kaasoo khasaaro badan geystay islamarkaana ay ku dhinteen ilaa iyo 10 askari oo ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya weliba kuwa midowga Afrika oo halkaas ayagana weerar lagu qaaday arrintaas kadib ayaa maamulka Hirshabelle waxay go'aansadeen in waddadaasi si dadka maraya adeegsanaya ay ku badbaadaan islamarkaana ciidamada dowladda Soomaaliya si hagaagsan ay ku mar lahayn waddooyinkaasi waxay go'aansadeen in ciidamo ay dhigaan deegaanada ahaan sheekh iyo weliba maxaa la yiraahdaa waddada Gololey deegaanka Gololey oo ka wada tirsan Shabeellaha Dhexe taasi ayaana keentay leeyihiin si aan uga hortagno weerarada al-shabaab ay ka geystaan si aan halkaas u hortagno Axmed waa santahay Xasan Maxamed Aweys ayaa markaan siinaya safaaradda Yemen iyo dowladda Soomaaliya ayaa ka hadlay muwaadiniin u dhashay dalka Yemen oo muddo saacadaha lagu hayay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho aadan cadde Xasan Maxamed Aweys ayaa arrintaas la socday stuudiyahana igula sugan isla markaana Xasan soo dhawow faahfaahinaga si arrintaas sida ay u dhacday iyo sida ay uga hadleen dowladda ama dowladaha Soomaaliya iyo Yemenba aad u mahadsantahay Maxamed Cabdisalaan arrintan waxa qoraya warbaahinta wadankaasi Yemen waxa ay leedahay muwaadin Maxamed Abdulrahmaan la yiraahdo iyo xaaskiisa oo ka soo safray magaalada Hargeysa waa dadka Yemeniyiinta ee qaxootiga kuwa Soomaaliya waxa ay soo aadeen dhinaca magaalada Muqdisho markii ay garoonka aadan cadde ay ka soo degeen waxa gacanta ku dhigay saraakiisha dhinaca amniga gacanta ku haya ee garoonka kuwaasi oo la tilmaamay ama qoyskan ay sheegeen in 3 maalmood ay lagu hayay garoonka magaalada Muqdisho arrintan waxa soo faragelisay safaaradda Yemen ee Soomaaliya iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya sheekada marka ay warbaahintu ay qoreen waxa ay leedahay waxa la socotay gabadha ay xaaska ee muwaadinkan la socotay waxa ay ahayd qof xaamil ah oo uur leh 3 maalmood intii gacanta lagu hayay ayay dhashay ayaa la yiri canug meyd ah taasi oo walaac gelisay xitaa uu soo hadlay ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalkaas Yemen ahna wasiirka arrimaha dibadda si safaaradda Yemen ay Soomaaliya ku leedahay faahfaahin uga bixiso safiirka Soomaaliya Yemen waa safiirka Yemen u fadhiya Soomaaliya oo isagu warbaahinta la hadlo waxa uu sheegay in ay la socdeen qadiyadaasi waxa uu meesha ka saaray maalmaha dadkan ay xirnaayeen waxa uu yiri kaliya dadkan waxa la marsiiyay waxyaabihii dadka imaanaya ee ajaanibta la marsiiyo dhibaato kale ma aysan la kulmin inkastoo uusan cadeenin kiiska la xiriira gabadhan haweeneydan amaba uurka lahayd ee canug meedka garoonka aadan cadde ku dhashay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya oo markii hore safaaradda Yemen ee Soomaaliya ku leedahay su'aalo wax ka weydiisay arrimaha quseeya in muwaadin wadankaasi Yemen u dhashay lagu haysto garoonka aadan cadde wasaaraddu waxa ay tilmaantay in ay la xiriirtay agaasimaha garoonka aadan cadde kaasi oo markii dambe uu sheegay in labada qof muddo 2 saacadood garoonka lagu hayay xasan waa maasan tahay waqtiga ayaa aad noo kulaalaya dhageystayaal idaacadda kulmiye magaalada Muqdisho aad nagala socotaan barnaamijka falaqaynta wararka ayaa dhageysanaysaan markan ku soo dhawaada xubinta kalamaan wadani maxay kula tahay halka Soomaaliya afar inu safadaan waradna midnimada Soomaaliya waa muqaddas adna maxay kula tahay now waranagu horanu goone aqoonsi baan doonayna adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye waradna maxay kula tahay dawlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe federaal ina adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane oo duceeyay allay leedahay warnimiyo adoogi jawaari ay hees ajib oo ma salaameen ay ka dhawi widay ma ereyga saasana Soomaalay safaylanga anasin lafadaayay Soomaalay safaylanga anasin lafadaayay isan sikaleeto wal anfadaasa hadii fadaasan sakin anasin gatabay ma assalaama warnimiyo qofkii wax wanaagsan sameeya waa loo hambaliyeeyaa garaadkan nafaraya Soomaalidu waxaysan baran baa jira oo lagu aqoon nin madaxa oo kursi loo doortay fadhiya oo aan xabad iyo sharci midna looga kicin inuu iska casilo xilkii oo yiraaho aniga isababsan mayso bulshadaas iyo wadankaas isababsan maayaan wax Soomaalida looga bartay ma aha
marka oda jawaari guddoomiye hore wax fiican buu sameeyey waana in loo hambaliyeeyo marka anu waxaan dhihi lahaa isagoon bilaawaha dad xulin oon xinjira daadin oo aan xasuuq lagu le'diyo xaaladba aan geysan muran laysku xiiqiya markay meel xujo a gaadhay xil ninkii ka tegey baa xushmiyo mudan xasuus weyne xashe e jawaaraa bilado maanta loo xiray waxaa la yidhi cirro cadaabtiyaa ka xishootay odaga ciroolaha xay ka rabaa habaratante ambiro qalyada waa beena waay disaili wiilyada waaye arrima lahayn haddana asaasi asili meesha waa loo fadhiisanaysaa war qoladiina geedka fadhida qumayaatiin qumayo weliba tookafeerayaa maxaa dhacay maa dhahdiin maalin hore waxaa dhahdeen jawaariyow adigaa jiitoon aqalka joogayna dadka laga tacaabow haddaad norway u jahad sidii kayrna kuu jira mari jawaabteeda warkaas marka waxaan u fahmin inaad ogeydeen odagu inuu togi rabo tookafeerooyin iyo qumeel laysku darana waatiin laba qabiil hadda dhalata waa miya 28 sano kadib riyadii khayra waa ay rumowday muudayna qosolka ayaa ka dhammaaday odaygii jawaari ahaana waxa uu khayra ugu horreeyaa norway hadda norway hadduu tagana sidii khayra kuu jarrabay mari jawaabteeda waa idinkii dhahay marka waa laba muwaadin oo norwijiyaan ahay inuu dalkiisa ku dacweeyo qalad ma ahan war waxaan la yaabay iscasilaanta jawaari iyo boorsooyinka iyo albaarka lagu qabta lacagta ka buuxeen waxa kulmi war anigu waxaan u fahmay qoladiinaan geedka fadhisa in aad dacaayad fidinaysaan oo laydin yidhi inta wax yar laydin siiyey suuqa geliya in jawaari iscasilay sababtoo ah ilaa hadda ma hayno jawaari codkiisa uu leeyahay waa iscasile waraaq unbaa la akhriyey mana naqaan waraaqda waxa soo qoray marka nimanyow ma lacagtii gees idinka soo gaartay waxay siiya xoogaa wax iga siiya dagonka kuna war dawla warqada ka qoranya warwaga niman ayaantaa odhan la mashquuliyey mana hooyan mana harsan saqdii dhexe xalay markuu yidhi baashu waa iga bis meeshuu seexday arbacada inuu baarlamaanka la hadli doona la sheego soo toosayo bismillaahi araxmaani araxiim arba'ay may arantii arba'aan nagdee warya gaadhka waxaa jooga war fiican ulis u ahaya ra'iisul wasaare Itoobiya jiqa waa lagu soo dhaweeyey danta waa la ciyaara dirka haddana dirka waa la dhahay markii danta fiirsidi gayla dunta dar gayla waa loo lisi anu wa abi taladii oo mama sayid maxamed abdullahi hasan oo Itoobiya mar waa dagaalay hata waa la tus waa ka saalada safadar waa wata waada mataqana Soomaaliyo arimo marya dambo dagaala ma jirto hada mar dambo dagaala waa dhacay ama hagagasho adaili madaawayna kale kishnad ada adi waa maqanta wala anigu waxaan garan waaye ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa la yiraahdaa muslim iyo gal wuxuu yahay anigu ilaa hadda kala saari waaye warya dhaxdhaxada waa afka ka dhir warliyati bulda la oran jiray way waaratay la sacaanood ay maamusha Soomaaliland ayaaba jiri maamul baaban u magacaabayna taa waxa ka sii daranba ninkii loo magacaabay waxa uu degay Muqdisho oo xaafada Boondheere marka Soomaaliland taasi waxay ku tahay xagasho iyo ilhaamo mana qaadanayso xabsiga liintu ku cabi doonaan waraal yar nin degmada Boondheere degmeed u ma kartaa marka aad leedahay xabsiga liintu ku cabaya wadamada wiil yar oo nadar oo fogaleeg leeyahay taaka wuu hadlay wuxuu yiri hab aan laga ahayn iyo arlada dhab ugu noolaada dhaqankiina suubiya haddaan dhihi lahaa maanta dibka niman ku naaxoon fidnada dhaafin baa jira warniyo ninkaani been badana bismillaahir rahmaanir rahiim warniyo warkaas war ilmood maahane adiga yiriye ilmaha nabiniyo yaabkiis maxay la yaabiyiina la leeyahay war waa yaabanay nin dheere hadii mooshigii la soo gabagabeeyay soo gabay ii guurow iyo badhaafayo miya wariyaan bado Itoobiya ma dhaafiso mana u dulqaadanayso idii dib wada fawda wada habsiga dhaafi waa unaysa Soomaaliland iyo Oromo waa walaalo orqowdinow Soomaaliland iyo Puntland waa in maadeer wilaayay adina dadaali laakiin Jubbaland ka tabtiye war waxa walaalaha waa koonfur galbeed iyo Hirshabelle wadamada hadda ka hor madaxweynaha galmudug xaaf madaxooga arrimo ku kaceen wuxuu yiri ayaantan lug baan ku taagana marka uu jawaari waxa dhaaftay inuu u xaylo lugeeyay nimanka oo sida xaaf lug ku taagnaado marka dambe ay ciirsantaan oo labada dhigto wariya doga meelananka dhiidoy
waa yeelu walgorod u hal lugsaleediya mareebo korta ee dulmiganoo dhaafa warnimayow ninkii dilay jenaraal saciid mariino tuuto waa kii ku xukumay dil toogasho ah asna waa tii ku qanci waayo racfaan uu ka qaatay liibaan cali yaro waa mar kale shaarbaha saartuu dilka ku xukumay ha lagu qanci waayahe aan aragne madaxweynihii hore ee Brazil xabsigaa la dhigay waxaa la yidhi cunto bannaanka loogama keeni doono oo qaxwada iyo rootiga xabsiga laga cuno wax ka cuni doona war waxa oo xabsiga la dhigay waa madaxweynihii koonfurta kuuriya weliba bilcaana ahayd bilcaan 24 sano garkaa loo geliyey jug warniyo madaxweynihii koonfur afrika jacob zuma maxkamadda la hor keenay war madaxweynihii xamin xayb tii xayninkii loorne mar hore la sii day warnimayo boqorada sacuudiga ee imaaraadka kuwaas ma la xiro war naga tag hana xaalufin yaa noo keenaya bundado hudheeyo lacag ka bixi waradeer anaga caruurta caanawsi sanaal nooga tag imaaraadka war naga tag laanka lacag lama siiye hellu tin loo korogsato wari aanu dhanga laanka ee may kulay xubintii kalamaan ayaad dhegaysateen saaxiibayaal xubintaas kalamaan ayaana u dambaysay barnaamijkii falanqaynta wararka idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho anigoo maxamed cabdisalaan cumar ayaa idinla socodsiinayay shariif cabdulle maxamed danka farsamada ayuu ka qaabeynaya saaxiibayaal intaan barnaamij caynkaan kala kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo